quruxdeeda ka xunadi qurulaada bis ها والله صح بدن قروح إني سأودي aad u qaalisan asxaabta durmido oo u shadan gabdhaha waxa waa taalantiga badan leh faraxsanahay soo dhawaad asxaabe aad waa dhawahay gabadha ugu dheereed reer Muqdisho reer Switzerland haye garbeeg waxa walaalahayga marna saaxiibayaashayga oo shaqada aad maanta waxa barnaamij oo kala ilaaba ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta waxay ku saabsan tahay كماني هاي waxaan ku soo dhaweynaa barnaamijka kala walaasheen ana xilliye facid karood haye walaashay qurxay barnaamijkan maanta ka war ma sha Allah ku dhawaad wala barnaamijka waxa waa gabadh ugu dheeradeeda dadana gabadh ugu gaaban dishaa ما هذا حتى جواد مقص أو فنح ذو اللي ذا عتاي أنا كنا هاي جواد مقص أو قابل ذو أو بالبلار ذا هاي ما ولا قبل البلار سياسي ولا ما يحسب الدلال ما أنت محاولنا برنامج ما أنت محاولنا برنامج ذو ركضون سؤال الودينا أنا ما سؤال الودينا أقوله أوكي هرت أدونك وحكوا أقول يا برنامج وش تكارنا أقول يا كبرنا لو فكروا مختلف هذا كور حيقول يا أبونا أنا أفعربي يقول عشان أفهم عربي أيه ما أقول جواب سمع عبد وحيد لقاها وحنا كم قسمي عمل هذا نوع صح اسمعيني هذا أنا سمع هذا أمري وحنا هاي يقول يا أبونا ما شاء الله marka waaya saaxiibada horashada Carabi waxa lagu tabtooray loo saaxiibada adiga maxaa kuugu la yaab badnaa noo sheeg wallahi billaah dad badan quruxdeeda ka xunadi qurulaada bis ها والله صح بدن قروحdeeda inay سأودي soo jareenbo quruxdiya foolxumo isku bedeshay bismillaah rahmaan ajiib waa wallahi markay kumadida la fiiriyo ma artay dad ku dhahay isla qabareeda qurux badan qurux leeyda may dadka soo canaan amaana u arkaa bumadaas galgaceel ii qabaan qof oo aqoon u leeyin lama la iska caayo waa qof marka jeceshahay waa la caaya waa la kaftama laakiin waxa ku wadiina dadka inta badan waxay ku dhan wiilo erayga wiilo maxay dadku ugu isticmaalaan waxay ka wadaan erayga wiilo arto way ku xun yihiin ma fahmino dhaqankeegi eleeyeen de fudaadku waa loo istaadey iska ma ka keeno dadka kale waxay dhahay dad gabadha maxay la boodboodaysaa jimicsi ay ka mid ahno jimicsiga waa u sheeg mito jiga baa u baahan ilaan qof walba wuxuu leeyahay taalantigaaga soo badhiga dadka ku xun yihiin waxa inay qoslaan video dada markay kumatiyaasha soo qorayaan dameero eeyo soo diraan waxyaalaha qaab daran soo dhigayaan inta ku xumaanay ka tahay adiga ku soo dhigin waxay dhahay harta is astureynaa deeg qaawan walaalo inta arkoosa is asturka waxa waaye lagu heetaa taagas ama ka wadaane lagu taagtay dadku oo qaawan u jeeda dadku tiktok oo lahay oo qaawan waxay dhahan keep going hor u soco laakiin ana maxaa hor u soco gadaal u socday deediine ما شاء الله laakiin waxaan soo noqonaynaa walaasheen fanax ficil karar ma dhigi jiray ficil karar soo diinaya insha Allah inaan ka jawaabtaan rajeenaya macallin barnaamij aan wada shaaxa yani karanayo shaaxa barnaamijka shaaxa soo bandhigtay runtii ana shaaxa maalinta soo aad u macaan banday yani shaaxa ma liisinin bam haay yaado waa maqnaada ma joogno adiga marka barnaamij shaaxa dad badan soo dalbaday oo ka jeclaadeen ayagoo cabin dhadhanka xataa dhadhamin xataa ka jeclaadeen marka shaaxaagina dib u soo cismo laga yaabaa shaqadaada صح وشحوة فريا dadka Soomaalida waa shaax jecel anaga markayna leeyahay wallahi bilaa kumadiyaasha qaar markay fiiriyay dad badan yani shaax halkaas kumadiga ka qayb cabaayay oo kaga socdo exam iyo arrimo jaamacada dhankaas ay wadkeeday sidaas awgeeda aniga maqnaa waan idin hees qosolka farxadda durdur meediyo wallahi ma sha Allah waay laakiin gabar waxa taa jaamacad baranaysa tahay gabar waxa taa dhinac durdurmida ka socotaa oo ka shaqeyso gabar waxa taa TikTok la tahay dadka sidee ku aaminsan iyo sida taa laba faqra u dhaxaysa wallahi boqolkiiba boqol dadaalaysa ma sha Allah anaga waan nataa kale jaamacad ma dhigin laakiin adiga waan dhaantaa sidii tahay okay badan way soo caayaan dad xitaa way jiraan oo video iyo dad oo dhan aan u diiday waayo dhaqankoodii iyo aan dadka oo yasaan aan sawir xad video isku day sawir xataa lama galaan
صح. agaaray joogaan xataa waan ka fogaadaa sababta uga fogaad maxay tahay? sababta u fogaa qalbiyadooda xunbo qofka kor adaa oo ka arkaysid sababtoo ah qofkan waa garanaysaa qulubtooda wax ku jiro sababta uu garanaysidna markaa fiiris indhaha dadku bilaadan leen kartaaba qofka inuu wanaagsan inuu fiican yahay okay waa sax ah barnaamijdaas bilaadan isku mid ma ahanto mana dhamaystirno way ku caynayaan sidii rabeen ku caynayaan way ku qosolkaas qalbiga laga qoslaa laga dhool cadeeyaa asxaabta marka qaar aan deecaayaan hataa ihi ila iska dhaha qosolka horta waxa waaye tawa wala dib tiktok xayad hal geeyo saan walaande diris hal tiktok xayad geelahay waa qofka marka Soomaali Maxamed Mujeeda hada meel kasta joogan waa ni salaamarta waxay soo jiraan magasay Soomaali hadaan nahay anaga dadku waa caynaa dadkii firfircoon oo habiyaha waxa soo jira way waaleeyeen wallahi Soomaalida dadka horta inta Soomaalida marka hore u socota inta badan waxay ku dhahay yani waxay isdhaayaan mataqaan qofka uu waaleeyaa uu fududeeyaa uu xun yahay saan waaye laakiin marka horumar aa gaarto oo hore u socoto oo talent aa gaarto markaas waa laga yaabaa in lagu saacabato laakiin inta ka horeys maadaama cusubta nolosha aad ku cusub tahay social media ku cusub tahay hoosa lagu dhigayaa asxaabta waxaan la socoteen barnaamijkii qaraaxada oo qosolka ahay oo hablaha durdur media sida taqaadin gabdhaha durdur media marka aad u fanaxsana maanta barnaamijkan marka waxaan leeyahay barnaamij asxaabta ma ku macsalaamaysa ugu dambeyntii sidaas iyo nabadgelyo insha Allah